weli ma isweydiis dadka caankii marka ay geeriyoodaan sababta loo follow gareeyo oo macnaha imka gabadhan hodan ilaahu naxariistee intaan bay maraysay haddana intan bay maraysaa weli ma isweydiisay dadka caankii markay geeriyoodaan sababta aadka looga hadlo ee macnaha loo sheego wax walba fiican ay hore u soo samayn jireen weli ma isweydiisay dadka caankii markay geeriyoodaan qof maalin walba qofka comment xun soo qori jiray sababta uu maalinta uu qofkaasi geeriyoodo uu u dhaho alla qofkaasi qof fiican buu ahaa walaal qofkani qof fiican haduu ahaa maxaad markii uu noolaa wanaagiisa u sheegi weydii qofkani qof fiican haduu ahaa markii uu noolaa maxaad ugu dhihi weydii wallahi billahi adoo kale waa loo baahan yahay qof fiican baa tahay waay aad la sugaysaa maalinta uu geeriyoodo oo uga sheegaysaa kaliya wax fiican maalinta uu geeriyoodo qofka ibnu aadamkii waxa aad u fiican in aad dhiiri gelisid marka uu nool yahay waxa aad u fiican in aad follow gareysid marka uu nool yahay waxa aad u fiican in aad taageertid marka uu nool yahay laakiin qofka ibnu aadamkii marka uu geeriyoodo kaliya wuxuu kaaga baahan yahay duco follow kaagama baahno wax kale la kaagama baahno marka intan ka faa'iideyso qofkaas sanada uu fiican yahay hadda taageer hadda comment fiican u qor hadda follow garee hadda ku dhaw walaalo waad fiican tahay miilad arkin miyaa dad social media waxyaabo aad u xun ku soo gudbiya oo macnaha aad marka qaar kood macallis weydiinaysa alla qofkan dadka ma dambeeya miyaa oo markay arkaan qof geeriyooday dhahaya alla ilaahay ha u naxariisto alla qoftaas qof fiican bay ahayd ama qofkaas qof fiican buu ahaa hadduu wiil yahayna dee qofkan la ilaahay ha u naxariisto qofkan isagu dib intuu isku eego ilaahay inuu u naxariisto ma weydiisanayo sababtoo ah wuxuu arkaa un qofkan mooyaane naftiisa maba ogaba mid baa jirto qofka taajirka ah lacag la'aantu siday tahay ma dareemo qofka caafimaadka qabana ma dareemo caafimaad darradu siday tahay qofka aan dib soo arkinna ma dareemo dhibaatadu siday tahay markaa qofka ibnu aadamkii ilaa wixii uu arko ama isaga ku dhacda mooyaane maba dareemaba marka maalinta xanuunsatadu ma dareemi caafimaadka faa'iidada u lahaa alla xagan ma ay kara qoorta ay xanuunaysa ma ordi karo lugaa ay xanuunaya sariirta kama kici karo cunta igama daadegayso manaha qofkii wixii uu heli jiray markuu waayo unbuu dareemi inay dhib tahayba sheekeer baan idinka sheekeynaa shilkaygu ugu horreeyeen gaari galo wuxuu ahaa qurbaha anoo gaari wada uu roob da'aayo ayaan gaari kale ku dhacay haddana gaari kale aan ku sii dhacay alxamdulillah dadkii oo dhan wada nool yihiin macnaha meeshaas lacag baa ku khasaartay mooyaane waa la wada caafimaad qabaa marka waxaa dhacday markaan shilka saa u galay dhowrkii sikina ugu horreeyey go'aan baan qaatay hadda waa xilligii aan shil ku dhex jiray ee gaarigii kale wuu galay kan waan galay buuq baa jira gaariyaasha oo dhan aa wada qayliyay waxba igu soo baxay kadibna anoo indhaha isku haya ayaan ka dhaartay inaanan gaari wadi doonin oo waan naxay marka adu meeshii maalun baa ku burburay laakiin anagu caafimaad baan kaga soo baxnay ilaahay waxaan ku dhacay xilliga aan shilka galay maxaan ka dhaartay inaanan gaari wadi doonin naxdin baa iga keentay waxaas waan naxay ilaahay baan dambi dhaaf weydiistay kadibna haddana de gaari waan iska wadaa muhiimadeedu waxa weeyaan qofka ibnu aadamkii xilligaa uu dhibta ku jiro unbuu wax dareemaa marka uu walaalkaa hooyadaa aabbahaa ina adeerkaa geeriyoodo baad geerida dareemi iyo naxdin markaad bilaa lacag noqotid unbaad dareemi lacag la'aanta dhibteeda adoo waxa ma haayo marka ilaahay noo sahlo ilaahayna iskeen jeclaysiiye fadlan qofku intuu nool yahay wanaagiisa u sheeg taageer follow garee marka uu geeriyoodo wax kale kaagama baahna duco unbuu kaaga baahan yahay